Assalaamu calaykum. Xili ay sii kordhayso dhibaatada shaqo la'aanta ee ka jirta caalamka, haddana dadka qaar waxay ku fikiraan sidii loo abuuri lahaa fursado shaqo. Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu la yaabka badan adduunka waxaa ka mid ah kuwa ay dadka qaar ka helaan nolol maalmeedkooda. Inkastoo ay jiraan caqabadahaasi dhammaan, shacbi weynaha dunida ku nool kama aysan horjoogsan in ay helaan shaqooyin. Shaqooyin waxaa jira xirfad aan u baahnayn, sidoo kale aan u baahnayn shahaadooyin. Halkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa maanta daawade 6 shaqo cajiib ah markaan kuu sheego aad la yaaba doontid ku soo kordhay dunida tan aynu joogno. Shaqada koowaad, in la kiraysto wiil saaxiib jacayl ah. Dalka Jabbaan, magaalada Tokyo dhexdeeda. Haddii aad tahay gabar aadna haysatid lacag, way kuu fududaanaysaa inaad hesho wiil kula sameeyo saaxiibtinimada jacaylka ama lamaaneba kuu noqda. Dad badan la yaab ayay ku tahay arrintan, balse waa shaqo weysanaysa kuna soo badanaysa dhawaanadan dalka Jabbaan. Shaqada labaad, in la ursado warqadaha masquulaha. Shirkadaha soo farsameeya warqadahan iyo matiishiska lagu isticmaalo suuliga waxa ay doonayaan inay xaqiijiyaan tiishiskooda in ay soo uraan ka hor iyo kadib marka la isticmaalaba. Inta aan suuqa la gelinin warshada gudaheeda, waxaa ka shaqeeya dad ay hawshooda tahay in ay ursadaan isla marka la sameeyo iyo marka la isticmaalo kadibba. Shaqada saddexaad waa mid fudud dabcan. Seexasho hurdo lagu helayo. Waa suuragal inaad la yaaban tahay in hurdo lagu helayo mushaar. Haa, waa sax. Dad ayaa lacag lagu siiyaa inay seexdaan. Waxay u shaqeeyaan saynisyahano cilmi baaris ku haya dhibaatooyinka hurdo la'aanta. Waxaa la siinayaa daawooyin lagu hurdo si loogu tijaabiyo dadka ay hurdada inta badan ku adag tahay inay si nabad leh ku seexdaan. Sidaas ayayna lacag ku helayaan kadib markii ay soo toosaan. Shaqada afaraad, nadiifinta mantaga. Wadamo badan oo ka mid ah reer galbeedka, tani waa shaqo si joogto ah looga qabto goobaha ay dadweynaha ku badan yihiin, sida basaska iyo tareenada ama meelaha lagu dukaamaystaba. Qof walba shaqadaas ma qabto, balse waxaa la siiyaa dad aqoon u leh keliya. Haddii aad diyaar u tahay shaqada tan, waxaad tegaysaa goobaha dadweynaha ay joogaan, adiga oo sugaya keliya in qof uu ku mantago meeshaas. Durbadiiba si aad u nadiifisid, lacagtaadana aad hore u heshid. Lambarka shanaad, kala garashada digaaga labka iyo mid kale dig ahba. Liiska keena maanta 6 shaqo aynu sheegi doono waa midda ugu adag aniga ahaan, waayo hawshan waa in la kala aqoonsadaa. Digaaga marka ay weyn yihiin ma ahan, waa marka ay yar yihiin, inay yihiin dhadig ama inay yihiin lab. Dalka Ingiriiska, shirkad ku taala ayaa shaacisay sanadii la soo dhaafay in dadka khibradaas leh ay yaraadeen. Xitaa sanadii waxaa la siiyaa lacag dhan 40,000 oo geni. Shaqada tan marka waxaa kaliya laga heli karaa dalka UK. Shaqada lixaad ahna midda ugu dambeysa 6 qodob ee maanta, waa shaqada baroorashada ama u oohinta dadka laga dhintay ee tacsida ku dhacday. Shaqadani xiiso ayay ka yeelatay wadamo badan ee caalamka ka mid ah. Haddii aad u ooyi karto qof dhintay oo xitaa aadan aqoonin isaga iyo qaraabadiisa toona, shaqadani waad u qalantaa. Laga rabaa keliya inaad ilin badan u daadisid qofkaas adigoo aad u qaylinaya. Inkastoo ay u muuqato shaqo la yaab leh, waxay la mid tahay shaqooyinka kale. Dhalinyaro badan ayaa shaqadan nolol maalmeedkooda ugu soo saara wadamo ay ka mid yihiin Kenya iyo Nigeria, haba u badnaadaan dumarka. Daawade, shaqada ku cajibaysay iyo midda kugu la yaabka badneedba qaybta commentiga hoose inuu reeb. Muuqaalkeeni maanta halkan ayuu inoogu egyahay. Intii aan muuqaal xiga aan ku kulmi doono, waxaan idinka tagayaa. Assalaamu calaykum.
waraxmatullaahi wabarakaatuh.